shir madaxeedka midowga Afrika oo muddo 2 maalin ka socday magaalada Addis Ababa ayaa galabta la soo gabangabeeyay waxaana lagu ansixiyay shir gudoonka midowga Afrika ee sanadka 2018 oo noqonaya madaxweynaha Rwanda Paul Kagame halka lagu ansixiyay 2 gudi oo ka mid yahay gudiga dhaqaalaha midowga Afrika. shirka oo furmay maalintii shalay ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo iyadoo shirka diiradda lagu saaray maalgelinta dhalinyarada Afrika si ay u helaan shaqo abuur iyo waxbarasho iyo wax ka bedel lagu sameeyo qaar ka mid ah gudiyada midowga Afrika. safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Itoobiya Maxamed Cali Nuur ayaa wax ka weydiiyay go'aamadii ka soo baxay shirka midowga Afrika. wuxuu ku soo gabagaboobay ajandayaashii laga wada hadlayo dhan oo halkan aan ku soo koobi karin in la isku raacay ajandayaasha waxa ugu muhiimsanaa budgetka African Union ee sanadka 2018 in la isku raacay waxa kale oo la isku raacay in laga sii wada hadlo 0.2% oo la yiri lagu soo rogay Afrikaanka muxuu ahaa importiga waxa ay soo dhoofsadaan gaar ahaan eligible imports oo ah cunada iyo maaha laakiin waxyaabaha kale cashuurtaas in lagu soo daro si African Union dhaqaalaheeda loogu daro iyada isoo finance garayso. waxa kale oo lagu heshiiyey iyadana la doortay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu noqdo chairka uu ka noqdo sanadka soo socda 2018 inuu chairka noqdo. waxa kale oo la isku raacay iyadana oo la isku raacay ma la ansixiyay labada commission oo ka harsanaa commissionada 8 ka ah ay ka koobantay African Union iyo organiskeeda oo ahaa commissionka economic affairs ka iyo commission kale oo ahaa science and technology oo ayagana labadooda la doortay. waxa kale oo la doortay 4 ka dhimanayd muxuu ahaa African Courtiga aydan ka dhimanayd waa la doortay. waxa kale oo la doortay muxuu ahaa iyadana 4 kale oo iyadana ka dhimanayd human rights ka ayagana waa la doortay. marka shirku wuxuu soo gabagaboobay shir aad u wanaagsan. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Addis Ababa kulamo kala duwan kula yeeshay madaxay ka mid yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti, madaxweynaha ku-xigeenka Botswana, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, madaxweynaha ku-xigeenka Masar, wasiirka arrimaha dibadda Kenya, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga. waxayna dhammaan soo dhaweeyeen horumarka ay sameysay dawladda Soomaaliya muddada ay jirtay iyagoo ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dawladda Soomaaliya ayna ka go'an tahay xoojinta xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo sii wada kulamada uu la yeelanayay mas'uuliyiinta kala duwan ee ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa kulan muhiim ah waxa uu la qaatay madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika waxa uu kala hadlay in bangiga uu ka qayb qaato horumarka dalka Soomaaliya gaar ahaan sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, dhismaha wadooyinka, iskuulada si wax loogu baro dadka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kulan muhiim ah waxa uu la qaatay gudoomiyaha gudiga amniga midowga Afrika isagoo kala hadlay sidii midowga Afrika ay qayb uga qaadan lahaayeen dhismaha ciidanka qalabka sida kuwa loo diyaarinayo inay la wareegaan guud ahaan ammaanka Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Addis Ababa.